fadhigan oo ay soo xaadireen 39 mudane oo ka tirsan xillibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee golaha aqalka sare waxaa shir gudoominayay gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo labadiisa ku xigeen ay dhinac fadhiyeen ajandayaasha ugu waaweyn ee fadhigan looga doodayay waxaa ka mid ahaa dhibaatooyinka gurcan oo ciidamada Kenya ay ku hayaan shacabka ku dhaqan magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo ansixinta guddigii loo xilsaaray weerarkii lagu qaaday hoyga Cabdi Xasan Cawaale qaybdeed iyo warbixin laga dhageysanayay wasaaradda macdanta iyo biyaha xukuumadda Soomaaliya mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee golaha aqalka sare waxay wax laga xumaada ay ku tilmaameen dhibaatooyinka ay ciidamada Kenya ay ku hayaan shacabka ku dhaqan degmada Baladxaawo iyadoo 197 guri oo ku yaala degmada Baladxaawo ay ciidamada Kenya sheegeen in ay ku yaaleen xuduudda Soomaaliya iyo Kenya marka Baladxaawo waa qasab laga hadlo waxaan meesha u fadhino waa dadkiyadii waa ilmahayagii ما هو قلنا دين طلال بدل هذا مش هلاقي كلا يطلع صوت وطن هاي أمنا أيام مهدي يدي سوايا قولي جدنا كبر كهذا تري ما يجي لبع الشوف ما عنينا سلا سر كينيات كينو رينا قدامي أرنتا وحاوا أرن عروس إني نسلا كعيا لنا واللباهي هدي ليلة لو يريد والبحوب مهليرة هو مليسة اسكبر لباقي موطة أرنتا بريتو iyo beriga inay dhaafnaado xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo kamid ah xubnaha guddiga loo xil saaray arinta xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ku eedeeyay in aysan wax hadal ah ka oran xaaladda dhibaatooyinka shacabka lagu la kacayo haddaba madaxweynaha gudoomiye waxa laga yaabaa boobka aan geedka loogu soo gabanaynin ee dawladda Kenya ee ka wadagayga Soomaaliya gaar ahaan Baladxaawo waxa laga yaabaa xukuumadda Soomaaliya oo uu hogaaminayo mudane ra'iisul wasaare Khayre inay indhaha ka qabsatay boobka shacabka lagu la kacayo mudane gudoomiye iyo golaha naga sharafta badan dadkii Baladxaawo waa dhiban yihiin sidoo kale xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa gudoomiyaha golaha aqalka sare iyo xildhibaanada baarlamaanka ka codsaday in si degdeg ah loogu yeero wasaaradaha arrimaha dibadda amniga gaashaandhigga arrimaha gudaha iyo guddiga xuduudaha si wax looga weydiiyo arrimahaasi waxaan gudoomiye iyo guddiga hortiisa ka codsanaya in ay wasaaradii shuqulka ku lahaa arrimahan sida wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga intaba isugu shaqo bay ku leeyihiin waxay meesha ciidan baa jooga amni ah ciidan kale difaac ku jira jooga wasaaradda arrimaha gudaha waa dalkeedii oo arrimaha gudaha ka hadlayaan guddi arrimaha gudaha leenahay wasaaradda arrimaha dibadda xuduudii way wax lagu xadgudbayo inay yimaadaan aqalka hortiisa si aan wax uga weydiino waxa meesha ka dhacay aan wax ka soconayo wixii ka ogyihiin gudoomiyaha aqalka sare oo shir gudoominayay fadhigan ayaa aqbalay in si degdeg ah loogu yeeri doono xubnaha golaha wasiirada si arrimahaasi wax looga weydiiyo kulka wasiiradan u yeeranaynaa arintu halkaasay inoogu xiran tahay wasiiradan u yeeraynaa markaasaynu dooda aynu si fiican u doodi karayno waad mahadsantihiin shirkuna waa inoo xiran yahay si kastaba ha ahaatee doodan kulan oo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee golaha aqalka sare ay ka yeesheen dhibaatada ka taagan degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli ay sii kordhayaan qayladhaanta xoogan ee ka imaanayso shacabka ku dhaqan degmada Baladxaawo kuwaasoo cabashooyin xoogan ka muujinaya dhibaatooyin aan loo meeldayan oo ciidamada Kenya ay ku hayaan shacabka ku dhaqan magaalada Baladxaawo Umar Maxamed Somane Universal TV Muqdisho